بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. داوديال sawirkan halka ka muuqanayo ayaa baraha bulshada isagoo muuqaala iyo aad loogu wareejinaya oo waxaa la leeyahay waa gabadhii Soomaaliyeed ninkii uu ku dilay Soodsii ninkii Kenyaanka dalka Kenya u dhashay dad baa baraha bulshada been ban propaganda iyo waxa waxba ka jirin baraha bulshada inta la wadaagaya hadaba gabadhaasi Farxiyo Axmed horay baan u sheegnay gabadhaas inay ahayd gabadh xanuunsan waa sheegnay mataqaanaa xaaladeeda in lagu sii noqnoqdo oo hadda aan wax raadinana waxba sheegi mayso balse waxaan ugu soo celiyay waxaa aragnay muuqaal baraha bulshada si weyn loo soo geliyay dad maxashoodayaal ah oo ilaahna aan ka baqaynin aan u fiirsanaynin shaygan sax ma yahay mise ma aha yaa mataqaanaa baraha bulshada ku faafinaya kaasi oo ah muuqaal gabar Oromo ah oo nin mataqaanaa Kenyaati ah muuqaal kala duubtay mataqaanaa xeebta Mombasa kaasi soo geliyeen waxay leeyihiin waa gabadhii Soomaaliyeed ee dhawaan lagu dilay Soodsii farqiga kaliya u dhaxeeyo waxaad fiirisaa wax saa u sii weyn baa sii fiirin gabadhan hadda ay na tusayaan da imsaad ku qiyaasi kartaa adiga daawanay da ahaan meeqad ku qiyaasi kartaa gabadhan hadda kor haddii u boodo oo niraahna xitaa mataqaanaa rafaad bay kusoo kortay 25 iyo tii kartaa haddii kale ka yarta gabadhii laakiin dhimatay alla ya raxma 35 sano ayaa lagu sheegay inay jirtay baaritaan yaa weli socdo oo dowladda ay wada qaabkii loo dilay oo dicaana mataqaanaa la qaaday ninkii oo weli lagu daba joogo weli aan la shaacinin howlaha halkaa ka socday laakiin dadka Soomaali ma hubsanayaan mar garanayo danta ugu jirto qof dhintay oo marxuum ah in xilligan mataqaanaa fadeexad iyo cay iyo waxaanan qabanin in laga faafiyo qofkan haddii uu xumaa maatiis mataqaanaa waa la tagay haddii uu wanaagsanaa wanaagiisii wuu la tagay marka ma garan karo wax mataqaanaa loo daba socdo oo loo dhahayo mataqaanaa xilligan muuqaal iyada qofka uusan ahayn shaqana ku lahayn in intii lasoo qaado baraha bulshada lasoo geliyo la yidhaahdo waa gabadhi waa nab iyo namiimiid waa la nabay waxaa lagu nabayaa waxaynan ahayn ayaa lagu naba sawir is eedahen yaa lewa iyada muuqaal eedahen baa lewa iyada man aha Soomaalidu waxay aad u jeceshahay weliba rag waa inuu fahmi waayo waan garan waayo inay ceebta gabdhahooda inay raadiyaan aad u jecel yihiin oo la yiraahdo gabar xun oo Soomaali ah yaa meesha taagneed gabar xun baa saas samaysay gabar Soomaaliyeed gabdhahan sharaf bay leeyihiin gabdhaha dunida ugu wanaagsan baynu Soomaali aan haysanaa wallaahi ma garanaysaan carar balwakaase intiina mataqaanaa wax garadka ah ee aqligu saaxiibka ah hal mar tayar baxdaan afar wadan oo wadamada kugu dhow ama meelo kale ah xataa muslimiinta waltag hadda sug marka dhowr wadan kuu sheegayo bal Masar tag oo tag mataqaanaa Turkiga oo Indonesia tag oo Malaysia tag gabdhahooda siday u yihiin bal soo fiiri iyo gabdhaheena anaga khamaarka ay qaadanayaan halka ay saaranayaan hadda yaa ceeb noo ah oo naha gabadha mataqaanaa gabar xun weeyo khamaar bay mataqaanaa qaadataa dunidu way ka tageenba timihiisa u qalaalan ay surwaal la qabaan sankana durteen bay ku socdaan anaad waxaan ugu soo kordhay kaliya sankaa la duranaya yaa gabdhaha kusoo kordhay barihan sankaana waxaa weeye gabar kasta oo gurigooda lagu gumaysto yaa sankaa durato oo dhibaato ka haysata taa waa la ogi iyada ama ninkeeda ha gumaysto ama waalada ha gumaystaan haddaad aragtay gabar sankaa duranaysa waa gabar la gumaysto ay gumaysaa dadka sanka ka duri jiray marka gabdhihii ugu wanaagsanaa inagoo haysanna yaa haddana la jaa-ifeyn oo la caayi oo la waxeen seedaba qofka haddii aad caydo waxba ma soo kordhin bataatan
wax soo kordhisa wanaaga ma jirto waxaan qofka inaan u nasteexaysaa subana calayhi salaatu wasalaam markii oo uu saxaabadiisa qof uu wax sameeyo shaygaan uu dhibsado muxuu samayn jiray dadkii si guud ula hadli jiray yaa macshar muslimiinay waxaa samaynina saxa dhihina qof baa dee loola jeeda agow qofka waxa sameeyey qofkii keligii lama dhahayo waraa hebelow waxaasaa samaysaa samayn asluub ma aha markaad qofka caydo markaad aflagaadayso qofka waxaa ka imaanaya radul ficli baa ka imaan radul ficligaa marka laba yuu noqon mid wuxuu noqon mid maskaxdiisa dhibaateeyo oo qofka wuxuu doono uu sameeyo uu sii wato ama inuu wax dilo iyo noqon wayna ku badan tahay social media dad iyagoo iska caadi ah baraha bulshada soo galo oo sida loo caayi markii dambe waxay noqonayaan markii dambe bahalla caadi ah ayay noqonayaan waxay sheegaan ma yaqaanaan waxay ka hadlayaan ma garanayaan ilaahay ma tala saaranayaan marka caydii la caynayay baa qofkii yaa waxay ka dhigtay duurgal way fogeysay marka gabdhaheenna soomaaliyeed sharaf bay leeyihiin muuqaalkaas baraha bulshada la wareejinayana gabadhaas dhimatay qabri ah u nuuriyo iyada ma aha qof kale weeye soo raadiye waa heli kartaan adduunkan maanta tiknolojiyad yaa jirta waxyaaba badan lagu baari karaa jiraan marka inaad soo baarto yaa fiican intaad la soo fadhiisata meeshan aad gabar walaasha oo dhimatay oo la dulmiyey oo la dhibaateeyey oo la dilay aada caynahayd subxaan allah qiid waxaa wax aad looga naxo wax aad looga xumaado weeye wax wanaagsanna mataqaanaya ma ahan marka dadka soomaaliyeed kuwooda mataqana ku degdegaya arrinta iyada ah wax ka wantoobaan dadka soomaaliyeed marka oo iska soo qaadanaya shay walbaba wax ka wantoobaan xaqiiqdu waxaa wax anfacaya mataqaanaya maaha diiniyanna qofkan mataqaanaa shay kasta oo baraha bulshada aad kusoo gudbinaysa haddii uu been uu yahay dee waad garanaysaan xadiiskii subana calayhi salaatu wasalaam qofka beenaala waxuu ka sheegay waa taqaanaa weliba qofka mataqaanaa beensi ay deg deg ay tahay sariic oo ay daafaha dunida ay gaarayso in labadaas laga kala goonayo oo lagu qabanayo mataqaanaa biro oo markay dilaaciyaan ay soo bogsanayaan haddana xilligan la taaganya social media isticmaalaysa oo markaad muuqaal soo gelisa halkii marba uu dunida dacalada hal mar uu gaarayo kaba sii daranba marka waa inaad shay kasta oo been ah iyo shay kasta oo ka jirin inaad ka digdoonato wey weliba shay qofka wax yeelaya dhibaateyn kara inaa iyadana aad kaga fiirisa wey wax kasta oo la sheegay inaad kasoo qaadata mataqaanay maaha gabadha walaasheen yaa loo gafin gabadhaas gabadha dhiban oo xanuunsan bay ahayd kadib waa lasii dhibaateeyey waa la dulmiyey marka dulankii iyo dhibaatadii iyana dhibaato kale ugu darin ehelkeeda iyo qaraabadeeda iyana sii dhibaatayna ee qalbiga ilaahay u qawajiy iyagana inaguna mataqaanay intaasaan ku reebno oo mataqaanay wadwadka iyo sheekadan farada badan aan ka joojino intaasaan muuqaalka kusoo afmeer dawla wadaaga saaxiibadii